رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن والضلالات. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الإسلام، waxaan horey shalay uga soo hadnay waajibaadka iyo ciddii waajibka ku tahay bisha Ramadaan, inagoo qodobo yaryar ka soo qaadanay ciddii waajibka ku tahay iyo laba siyaabo oo la khafiifiyey uu qofku ka faa'iidaysan karayo inagoo hore uga soo qaadanay. laakiin maanta insha Allah biidni illaahi tacaala waxaynu ka hadli doonaa dadka muuminiinta inay waajib ku tahay ama ay sunno mu'akida ku tahay inay isugu hambaliyeeyaan bisha Ramadaan. maxaa daliil inoogu ah inay bisha Ramadaan iyagu inay isugu hambaliyeeyaan ay sunno mu'akida tahay? xaggaysan ay sanadka cusub isugu hambaliyeeyaan ay dadka gaalada ay happy new year-kooda isugu hambaliyeeyaan. waxyaa laynaga rabaa inagana inaanu bisha Ramadaan isugu hambaliyeyno, oo laynaga rabaa jimcayaasha inaan isugu hambaliyeyno, oo laynaga rabaa labada ciidood inaynu isugu hambaliyeyno, ciidulfitriga iyo ciidul adxadaba. saal ajligeed ayaanay ku koobanayn in sanadkii hal mar oo keliya la isugu hambaliyeeyo. mana banaana sanadkaas ay gaaladu isku hambaliyeeyaan inay dadka muslimiinta sanad ahaantaas isku hambaliyeeyaan. bisha Ramadaan iyadoo markaa hambaliyadeeda ummadda iyo rasuulku ugu hambaliyeyn jiray, wuxuu oran jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis uu warinaya Abu Hurayra radiyallahu canhu qaal: kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yubashiru asxaabahu biquduumi Ramadaan yaquul: qad jaa'akum shahru Ramadaan shahrun mubaarak. subxaana allah, shahru mubaarak. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo asxaabtiisa ugu bishaareynaya wuxuu odhan jiray: waxaa soo idin timid oo idin soo haleesho idin soo gaadhay bishii Ramadaan ee barakaysnayd ayaa idin timid. markaasaa rasuulku haddana wuxuu u sheegi jiray: kataba allaahu calaykum siyaamahu. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu guudkiina ka dhigay, waajib ilaahay idinka dhigay inaad soontaan intiina soo gaadhay ee soo haleeshay. in badan ayaan soo gaarin oo sanadkii hore inala soomanaa, laakiin sanadkan aynala soomanayn oo dhintay. in badan baa inala soomanaa oo maanta sakaraada oo aynala soomi karaynin oo fidye waajib ay ku tahay ama loo fiirinayo inuu ka soo caafimaado. in fara badan baa inala soomanaa
oon maanta inala soomi karaynin sababtaasi cudurdaartaasi uu haysta darteed ama dhimasho wax uu dhulka hoostiisa ugu jiro. haddaba inaad soontaan ayaa markaa waajib idinku ah oo nasiibkiinu idin siiyey buu ilaahay ayuu rasuulullah calayhi salaatu wasalaam. waxaa bishaa gudaheeda fiihi tuftaxu abwaabu ljanna, waxaa bishaa rabadaan gudaheeda la furaa buu ugu bashaarayn jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waa bishii gudaheeda la xirxiri jiray albaabada jannaha buu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. wa tuqlaqu fiihi abwaabu aljaxiim, jaxiima albaabadeedana la xirxiri jiray buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. wa taqilu fiihi shayaatiin, shayaatiintana la xakamayn jiray weeyaan. fiihi leylatun khayrun min alfi shahr, waxaa bishaa rabadaan gudaheeda ku jira buu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam, habeen ka khayr badan 1000 bilood ka khayr badan. marka 1000 bilood marka la sheegana la tiriyana waxa weeyaan waa dhowr iyo 80 sannadood iyo 6 bilood iyo dhowr iyo 20 maalmood waliba. bacd culamaa waxay yiraahdaan waa 84, bacd culamaa waxay yiraahdaan waa 85. marka bacd culamaa waxa fara badan 84 ka yiraahda iyo 6 bilood iyo dhowr iyo 20 habeen. waa maxay? waa cimri dhan, qof dhan oo cimrigiisii hore ummadii nebi maxamed habeen kaliya ayaa cimrigiisii oo dhan khayrka uu la kulmaya, khayrku shaqaysan lahaa uu la kulmaya hal habeen haddii ilaahay ku aadiyo subxaanahu wa tacaala. ilaahay nagu simo, ilaahay nagu aadiye. waxaa rasuulku markaa leeyahay calayhi salaatu wasalaam, man xurima khayraha faqad xurim, qof alla qofka xurmeeya bishan ee siday tahay u xurmeeyana ilaahay waa xurmaynaya insha allah biidni illaahi tacaala. qaala alxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala, waxa uu yidhi ibnu xajarna wuxuu yidhi ilaahay raalliha ka noqde oo ahaa taabiciintii ahaa, wuxuu yidhi qaala bacd alculamaa, culimmada barkood waxay yidhahdaan hada alxadiid, xadiiskan asl ahaantiisu fii tahniyati innaas, waa ummaddu inay isku tahniyadayso ayuu ka sheekaynayaa oo iskugu bishaarayso rabadaanta khayrkeeda iyo sharafteeda iyo cisigeeda. bacduhum bibacda, barba barka kale ay isku bishaareeyaan bishahri ramadaan, shahrka ramadaanka ay isku bishaareeyaan. waxa uu leeyahay ibn rajab, waxa isagoo hadalkiisii uu sii wato wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar, wuxuu leeyahay xaafid ibn rajab waxa uu leeyahay isagoo hadalkiisii wata kayfa laa yubashiru almu'min, sidee buu aan qofka mu'minka aanu ugu bishaaraynayn qofka kale mu'minka ama walaalkiisa mu'minka aan ugu bishaaraynayn bitaftaxi abwaab aljinaan, iyadoo la furayo oo maaragtay albaabada loo ballaqaayo albaabooyinkii jannada ahaa. oo kayfa laa yubashiru mudnib, kii dembiga badnaa sidee baanu ka kale ugu bishaaraynayn iyadoo abwaabu niiraan tuqliqu abwaabu niiraan, albaabkii naaraha ee niiraan iyadoo la xirayo oo markaa saas loo gebagabaynayo. waxaa meesha aan ka faa'iidaysanaynaa bisha rabadaan inay tahay bishii raxmadda, bishii makfirada, bishii dembi dhaafka, bishii raxmadda. 10 horena cidku min annaar ay tahay, 10 dambena dembiga la dhaafayo, 10 dhaxana wasadkii ay tahay. 10 horena waa raxmo, 10 dambena waa maaragtay waa dembi dhaaf, 10 dambena waa cidku min annaar weeyaan, oo naarta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ka xoreynayaa. waa soo hadalkiisii wata xaafid ibnu xajar waxa uu leeyahay kayfa laa yubashir alcaaqil bitawqiiti liyuqlaqu shayaatiin, sidee baanu qofka caaqilka ahi ee caqliga u saaxiibka aanu ugu bishaaraynin qofkii kale isagoo shayaadiintii laga xirxiray oo dembiyadii wuxuu u gelin lahaa dartiisa laga xirxiray. kii wax xaman lahaayo xantaadii yarayso oo iska dhaaf, kii maaragtay wax ribo cuni lahaayo ribada iska ilaali, kii ummadda dhiigooda xalaashan lahayo ilaahay ka cabso oo ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii uga baqo, oo alla subxaanahu wa tacaala oo ku ilaalinaya oo waliba bishaan wax kastaad shaqaysato lagu labalaabayo. haddii aad marka ajar shaqaysta ajarkaagu waa lagu labalaabayaa, haddii shar aad shaqaystana sharkaagu wuxuu kuu noqonayaa mid alla subxaanahu wa tacaala kuu labalaabo, walciyaadu billaah. waa ka dembi badan yahay bilaha kale dembigan bishaan dembiyada la sameeyo ama bilaha xurmada leh dembiga la sameeyo. isagoo markaa ibn xajar hadalkiisii wata wuxuu leeyahay lidaa
تجوز التهنئة بين المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم waxaa sidaasoo kale u bannaan inay isku xaneeyaan oo isugu baaqaan oo iskugu baarigaan dadka muslimiinta soo gelitaanka bisha Ramadaan ay u soo gashay ee khayrka badan leh oo silatu raxim hadana ay sii badiyaan sadaqada ay sii badiyaan ay quraan akhriska sii badiyaan marka waxa la inooga baahan yahay walaal inaynu magaranaysaa arrinkan aynu ka faa'iideysano rasuulku suu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna inoo sheegay waxaa ku jira habeenada ka mid ah oo dhowr iyo 20-ka ah 21-ka 23-ka 25-ka 27-ka 29-ka miduu yahay ilaahay nagu simee oo ma garanaysaa inaad ka faa'iideysto Aisha radiyallahu anha waxay leedahay yaa rasuulullah haddii ilaahay habeenka ay la kulmiyo maxaa iraahdaa markaas wuxuu leeyahay waxaad ku ducaystaa اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو الله يوادقون با إنك عفو دنبي دافع تحب العفو إن الدنبي دافتنا دقا جال فاعف عني إلهي دنبي داف إلهينا وحوكو شيغي هبين كاسد الله كلن توينك على خير بدين هاي كن بلاد إن أنزل الله في ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح waxaa soo degaysa habeenkaas waliba malaa'igtii waliba isagoo waliba malku jibriil la socdo oo baasharayo hogaaminayo ayaa soo degayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii ka faa'iideysta Allah inaga dhigo kuwii ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ilaahay u dambi dhaafo Allah inaga yeelo inaga waalidkeen iyo awlaadeena iyo reeraheennaba kuwii midnimo iyo ehelnimo iyo islaamnimo isku bishaareeyaan Allah inaga yeelo insha Allah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax kastoon hagaajiyayna ilaahay rasuulkiisa ka sugnaatay wax kastoon haleeyayna Allah iyo wax kastoon haleeyayna shaytaan iyo nafteeda ka sugnaatay ilaahay waxaan ka rajaynayaa waxaan haleeyay inuu ilaahay khayr iyo ajri igu bedelo iyo dambigeedana ilaahay iga dhaafo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.